dagaalkan oo soconaya muddo ku dhawaad 2 saacadood ayaa ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxa uu ku dhaxmaray magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxaana la sheegay dagaalkan in si gaar ah u dhaxmaray ciidan nabad sugid ah oo dhawaantan lagu tababaray gudaha degmada Marka iyo sidoo kale ciidamo kale oo loo yaqaano 14 Oktoobar waxaana la sheegay in dagaalkan oo soconaya muddo in ay jiraan qasaarooyin iskugu jira dhimasho dhaawac oo ka dhashay soona kala gaaray dhinacyadii dagaalamaya dad shacab ah inta la xaqiijiyay ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhimatay dagaalka 6 kamid ah waa dhinacyadii dagaalameen halka qaar kalena la sheegay inay yihiin dad shacab ah oo ku dhintay rasaastii iswidaarsanaya dhinacyadaasi in ka badan 10 kalena waxaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen kuwaas oo qaarkood dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada iyo goobaha caafimaad ee gaarka ku yaala degmada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada saraakiil ciidan oday dhaqameedyo ayaa ku baxay dagaalka dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo markii dambe ku guuleystay hakinta dagaalkaasi laakiin inta aanan la hakin dagaalka ka hor waxaa la sheegay in ciidanka Amisom ay isku dayeen inay kala dhaxgalaan ciidamada ka wada tirsan dowladda laakiin u suuragal weysay hakinta dagaalkaasi inkastoo markii dambe mas'uuliyiinta xubnaha odayaasha u badan ee ku guuleysteen in ay joojiyaan dagaalka isla markaasna la kala qaado ciidamadii ku wada dagaalamay qayb ka mid ah degmada Marke ee gobolka Shabeellada Hoose dagaalkan oo soconaya muddo ku dhawaad 2 saacadood ayaa ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxa uu ku dhaxmaray magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose